dhaqaatiirta caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalintii labaad waxay wadaan ka wacyigelinta bulshada dhibaatada uu leeyahay cudurka safmarka ee coronavirus ama COVID-19 ee ku dhaqan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir. dhaqaatiirtan caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa watay baabuur ay ku xiran yihiin codbaahiyaal kuwaasoo marayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, iyadoona tallaabadani ay ka dhigan tahay kadib markii ay aad u badatay dadka uu soo ridanayo cudurka coronavirus. socdaalka kadib dhaqaatiirtu waxay gaareen xerada barakacayaasha beerta sayidka ee ku taala degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, iyagoo halkaasi ka sameeyay howlo isugu jira wacyigelin ku aadan dhibaatada cudurka coronavirus ama COVID-19 iyo baadhistasiya. waxaa goobtaasi bulshada kala hadlay Dr. Cabdirasaaq Macalin Isaaq Ibrahim oo ka mid ahaa dhaqaatiirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. cudurkaani coronavirus sidoo ku fidaa waa inaan ogaanaa cudurkaani waxa uu ku fidaa haddii qof cudurkii qaba uu bulshada idinka oo kala uu soo dhex galo oo uu ku dhex neefsado waxa uu qaadsiin karaa inta qof ee hareerihiisa jooga. haddii cudurkaani qofka cudurka qaba uu taabto meel adigana aad taabato si fudud ayaad u qaadi kartaa. sidaas daraaddeed cudurka coronavirus waxa uu ku fidaa isku soo dhawaanshaha dadka, waxa uu ku fidaa dadka oo aan waji xirkaani oo kala aanan xiranin. sidoo kale waxa uu ku fidaa in dadka ay isku neefsadaan ama ay isku qufaca qofka kale uu gaaro. sidaas daraaddeed waxaana looga baahan yahay talada dhaqaatiirta inaan qaadano. dhinaca kale isna waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Mustafa Ali Khayre, kaasi oo u mahad celiyay dhaqaatiirtan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama ay kaalin muuqata ka qaadanayaan ka wacyigelinta bulshada dhibaatada xanuunka coronavirus ama COVID-19. qabalaaran ka wada maamulka gobolka Banaadir guud ahaan gaar ahaan degmada Howlwadaag. runtii waa arin lagu farxo haddii ciidanka lagu yaqaanay inay cadowga baacsadaan maantana waxaa maxaa la yiraahdaa ay sheeg dadkii ay u samafalayaan dadkii mataqaana ay sheeg waxay u sameynayaan caafimaadkii ayagii abaaraya. taasi waxay cadeen u tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel walba iyo meel kasta in ay ku jiraan oo ay yihiin midyaha shacabka. shalay waxay la dagaalamayaan cadowga, maanta way la dagaalamayaan, haddana waxay ku jiraan howlihii baaritaanada cudurka safmareenka ah COVID-19 ee caalamka guud ahaan ka qaybisay. annagana hadda faraba aan ugu hawleena ka baryeena in ummadeena uu ka dulqaado. dadaaladan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ugu jirto sidii looga wacyigelin lahaa bulshada si looga hortago xanuunkan coronavirus ee ku sii fidaya gudaha dalkeena Soomaaliya.